بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaan marka hore tacsiyo dirayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed dhibaatadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ex control afkooye taasoo cadowga ummadda Soomaaliyeed uu ku gumaaday arday badan oo jaamacada u socday iyo dad ku mashquulsanaa aroortii u soo kalaxay risqoodii inay caruurtooda raashin u doontaan aroortii meesha isugu yimi dhacdadaasi waxay dhacday saaka 7 iyo 15 daqiiqo kadibna waxaa booliisku soo gaaray isla goobtii 10 daqiiqo kadib annaguna waxaanu nimi 8 oo waxla geerida halka ka dhacday iyo baaxadda ay leekayd iyo shirqoolku intuu leekaa iyo ciidamadu si ay soo hor istaageen xaalad akiran oo adag bay ahayd oo aad u fool xun una baahnayd in la fiiriyo kadib waxaa noo yimid duqa magaalada oo isagu aan naga dambeeyey muddo tirada markaa la sheegi karay ma suuragal ma ahayn waqtiga iyo xaaladda lagu jiro in la sheego waa garan kartaa meel in ka badan 70 qofood ay ku dhinteen in la yiraaho muxuu ahayn ta saacadiiba la soo istaagay intaas dhimatay markaa waxaanu islahayn waqtiga saxa ah ee la sheegi karo ee ummadda Soomaaliyeed loo sheegi karo waxa xaqaaqiqa jira ayaanu la sugaynaa ugu sabsanay taasoo waqtigeedii galabta markaanu soo eegnay isbitaalada soo tirinay meel walba aan soo eegnay aan rabay inaan u sheego tirada saxda ah ee dadku doonayay 79 qof ayaa ku dhintay ilaa saaka ilaa hadeer waana dhici kartaa qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 bayna ku sii darsamaan maxaa yeelay dad badan oo dhaawac jira dhaawacna 100 iyo xoogaa buu ahaa waanu soo kormeernay waanu soo booqanay golaha wasiirada oo guddi loo saaray anigu aan kamid ahaa duqa magaaladuna kamid ahaa ayaa soo kormeeray ciidamada booliiska oo meesha ka shaqeynayay iyo kuwii controlka joogay iyo arday jaamacadda u socotay oo meesha maraysa 2 baasaareed iyo ummad badan ayaa meesha saaka ku halaagsantay oo cadawgu ugu talagalay waa u tacsiyadeynaa dalka iyo dadkaba waxaanu leenahay mar labaad Allah u naxariisto ilaahay jannada ka waraabiyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo iyaga naftooda ay kaga dhinteen saraakiil xigeen meesha shaqada ka joogteen iyagana iyo xaasaskooda tacsiibaan u dirayaa waxayna u diideen baabuurkaasi inuu magaalada soo dhex galo waa garan kartaa dadka xamar yaqaana controlka afkooda meesha ku yaalo marka sidaas aan rabaa dadka inaan ugu bayaaniyo inaan yaani waqtiga munaasabka ah ee la sheegi karo waxa gaaray iyo khasaaraha intuu leekaa inay qaadan karin hal saac gudahood meel intaan leeg iyo masawirada aad aragteen dhulka baaxadiisa intay leeg tahay inaan lagu sheegi karin isla daqiiqado aan lagu sheegi karin intaas rabay inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed ugana wada tacsiyadeeyo intii dhimatayna Allah u naxariisto